madaxweynaha Puntland Saciid Dani ayaa ka qayb galay munaasabad ay ku qalin jibinayeen qaar ka mid ah ardayda wax ka baratay jaamacadda Boosaaso farceeda magaalada Garowe. Wariyeena Saciid Soona ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray. dal kasta oo horumar ku naaloonaya maanta waxaa dhabahaas u jeexay dadkiisa oo wax bartay halka kan gadaal oo haray loo aanay dadkiisa oo waxbarashada qiimo u yeelin sanadihii dambe Soomaaliya waxa aad u xoogeysanaya dadaalada lagu horumarinayo waxbarashada qaybaheeda kala duwan waxaana munaasabadan oo ka soo qayb galay madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani ay ahayd mid maamuus iyo sagootin u ahayd 158 arday oo dhameystay 5 kuliyadood oo ka qalin jabiyay jaamacadda Boosaaso qaybta Garowe waxa kale oo munaasabadan ka soo qayb galay wasiirro xildhibaano waalidiin ardayda qalin jabinaysay iyo asxaab kale oo halkan u yimid inay farxadda la qaataan saaxiibadooda la sagootinayo Dr. Maxamed Cali Maslax oo ah gudoomiyaha jaamacadda Boosaaso qaybta Garowe ayaa dhammaan madaxda dawladda iyo martida kaleba ku soo dhaweeyay jaamacadda waxaana uu ka sheekiyay dadaalada dhanka waxbarashada ee jaamacaddu ay wado iyo ardayda maanta qalin jabinaysa waxaan hambalyeeyaa dhammaan ardayda qalin jabisay mudane madaxweyne mudane marweyn jaamacadda Boosaaso waxa ka baxa kulliyado kala duwan ardayda qalin jabinaysa maanta waxay ka kala qalin jabinayaan 5 kuliyadood kulliyada shariicada waxa ka qalin jabinaya 32 arday kulliyada culuumta bulshada takhasuska community development waxa ka qalin jabinaya 23 arday kulliyada caafimaadka takhasuska umulisooyinka ama midwifery waxa ka qalin jabinaya 37 arday isla kulliyada caafimaadka takhasuska nursingka waxa ka qalin jabinaya 18 arday waxa kale oo kulliyada caafimaadka ka qalin jabinaya takhasuska nutrition and food science qaybta nafaqeynta iyagana waxa ka qalin jabinaya 18 arday pharmacy oo 10 arday ah medical laboratory isagana waxa ka qalin jabinaya 10 arday kulliyada ganacsiga iyo maamulka casriga ah waxa ka qalin jabinaya 11 arday totalka guud ee ardayda qalin jabinaysa maanta waa 158 arday gabdhaha qalin jabinaya maanta waa 77 gabdhood wiilasha qalin jabinayana waa 81 waxay muujinaysaa halkaasi kor u kaca waxbarashada ee gabdhaha jaamacadda Boosaaso farca Garowe iyadoo la jaanqaadaysa baahida ummadda bulshada ay ku dhex taalo waxay xoogga saartay inay doorato takhasusyada xirfadda ah kuwaasoo bulshadu ay baahidaba u qabto si looga gudbo in ardayga jaamacadda ka baxa loo doono in uu shaqo loo sameeyo inuu abuuro laakiin taa beddelkeeda ardadu ay noqoto kuwa iyagu shaqo abuurayaal ah tirada wiilasha iyo gabdhaha jaamacaddan ka qalin jabiyo aad isugu dhawaa isla markaana wajiyada laga dheehanayo farxadda iyo damaashaadka maalintan qalin jabintooda oo ah mid aad ugu weyn maadaama ay soo afmeereen waxbarasho sanado badan ay soo wadeen ayaa dareenkooda muujiyay waxaan rabaa inaan sidoo kale u mahadceliyo guud ahaan qabanqaabiyaasha xafladatan ka soo qaybgalayaasha madaxweynaha ugu horeeyo si sharafta leh sidoo kale waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadceliyo maamulkii macallimiintii muddada 4 sano iyo 3 sano isugu jirta ee aan soo dhamaysanay difacadaha kala duwan ee aan soo marnay marxalado kala duwan nala garab taagnaa wax kasta aan u baahanahay duruuf kasta adkeed aan soo marnay waxaan leeyahay madaxweynaha gaadho xaqiiqatan ma ilaawi doono ma ahayn maamul kaliya mana ahayn macallimiin kaliya waxay ahaayeen hagayaasheedii waxay ahaayeen hooyooyin waxay ahaayeen aabayaal xaqiiqatan ma ilaawi doono waxtarkii iyo guulihii aad gaarsiiseen maamulaha guud ee jaamacadda Boosaaso Dr. Maxamed Sheekh Cismaan Maxamed oo safar dheer u soo galay sidoo ardaydan uga qayb gali lahaa maalinta farxadooda ayaa la dardaarmay inaan idin kala soo qayb galo shalay duhurkii iyo waxaan uga soo tagay magaalada Boosaaso aadna waa idin kula faraxsanahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa idin weydiinayaa cilmiga aad barateen in marka hore naftiina Ilaahay uu ku anfaco dadkiina Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku anfaco ummadiina Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku anfaco dalkana aad ugu shaqeysaan diintana aad ugu shaqeysaan ugu dambeyn madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa hambalyo u diray ardayda jaamacadda Boosaaso qaybta Garowe ee qalin jabinaysa waxa kale oo uu ka hadlay qiimaha waxbarashadu ay leedahay iyo sida ay muhiimka u tahay in la sii horumariyo waxaan marka ugu horeeyo u hambalyeeynaya ardayda dhamaysatay heerarka koowaad ee waxbarashada ee jaamacadda
ee Boosaaso iyo waalidiintood iyo asxaabtood iyo dhammaan eheladooda iyo dadka reer Puntland guud ahaan iyo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan xafladan farxadda leh ee maanta halkaan ugu dabaaldegayno runtii quruxda badan loo soo agaasimay ee runtii waxa uu u jecel yahay qofka dhalinyarada ah cimrigiisa waa marka maanta oo kaleeta ah uu gabagabeeyo heerka koowaad ee waxbarashada halkaas oo ah meesha sida rasmiga ugu ambaqaado nolosha cusub noloshaas cusub ay isugu jirta inuu naftiisa maareeyo inuu ehelkiisa maareeyo inuu ummadiisa uu ku dhex nool yahay uu ka dhex muuqdo sidoo kalena inuu wadada horumarka cagta saaro hadday tahay inuu tacliintiisa hore u mariyo iyo hadday tahay noloshiisa inuu kor u qaado marka maanta runtii farxaddaas idinka gaarka inaguma aha annagoo dhan bay farxad noo tahay in jiilka reer Puntland ee aad qaybta ka tihiin iyadoo ay tahay sunno soconaysa inaan maanta idinka inagala qayb galno inaad farxaddaas idinla wadaagno run ahaantii tacliintu waa saldhigga iyo horumarka bulshada ugu dambeyn 10kii arday ugu sareysay jaamacadda iyo maamadii ugu da'da weyneed ee jaamacaddan ka qalin jabisa ayaa madaxweynaha dawladda Puntland waxa uu guddoonsiiyay shahaadooyinkooda. Socodsoona wararka Kalsan Garow.